loo xiriiray akaunka xisaabaad ee ay leedahay dawladda hoose taasi oo la xiriira fadeexado maamul xumo iyo musuqmaasuq daba telefishinka caalamiga ah ee Kelson TV oo helay nuqulkan lagu xiriiray akaunka dawladda hoose amarkan xayiraada oo ka soo baxay maxkamadda gobolka Hargeysa ayaa u dhignaa sidani gudoomiyaha banka dhexe oo gudoomiye ku xigeenka banka oo maayirka caasimadda Hargeysa oo xogayaha fulinta dawladda hoose oo loo fuliyay Cismaan Ciise Faarax oo wasiirka wasaaradda maaliyadda oo agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda ujeedo amar xayiraad xisaabta akaunka dawladda hoose maxkamadda gobolka Maroodi Jeex iyadoo oo tixraacaysa amarka fulinta xooga ah ee sumadiisu tahay ma jaaha xariijin dafala 2014 kuna taariikhaysan 16 bisha 2015 ee soo baxay 22 bishii 2015 oo ay maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ku amartay lagu fuliyaha dawladda hoose in ay muddo 10 cisho gudahood ku bixiso xuquuqda muwaadinka loo fuliyaha sare ku xusan haddaba waxa maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ee magaalada Hargeysa idigu amraysaa in aad xayirtaan lacagta ku jirta xisaabta lambarka dawladda hoose ku leedahay bankiga dhexe ee Somaliland taasi oo nambarkeedu yahay Somaliland shilling xariijin number eber dagaal iyo dollarka oo xariijin eber laba sababtuna ay tahay iyadoo oo ay ku waajibtay xuquuq dhan 6800 oo dollar oo uu leeyahay loo fuliyaha magaciisu yahay Cismaan Ciise Faarax taasi oo ay maamulka dawladda hoose ka dhaga adeegeen inay hor yimaadaan maxkamadda gobolka Maroodi Jeex isla markaana ay ka dhaga adeegeen in ay fuliyaan amarka maxkamadda sida ku xusan qaraarka aanu ku soo lifaaqnay isla amarkan sida daraadeed maxkamaddu waxay idinku amraysaa in aan la isticmaali karin xisaabaadka sare ku xusan markaana aad ku xayirtaan sida ugu dhaqsiyaha badan leh kuna fulisaan amarkan maxkamadda ilaa amar dambe si saxeexan محمد حسين عرالة قرصوري محكمة قبل كمرودي جاح أمر كان حيرادة كسو بحي محكمة قبل كمرودي جاح أيا كسو بيق مياه إذا سوين لوغا دايرين أيا حالة مامول iyo musuqmaasuq ee xaraysay maamulka dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa